Hey, salaam nabadeen xaskurkeena waa wadani. Waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno waxa loo yaqaano A to A oo macnaheedu yahay Amazon to Amazon ama Amazon to flip to Amazon. Amazon inaad alaab ka soo iibiso haddana waxaad ku iibinaysaa isla Amazon. Sidee ku noqon kartaa arrinka iyada macquul? Waa su'aal aad iyo aad mudan in la isweydiiyo. Okay, laakiin annaga waxaan leenahay waxaan rabnaa dariiqooyinka ugu fudud oo qofka bini'aadanka ku samayn karo lacag inaan mar walba xagga soo dhigno. Okay, ma jeclin inaan mar walba ka horse idinka iibin wax idinka iibin, laakiin haddaad isbixin kartaan waxaan isku dayaynaa inaan tusaalooyinka iyaga aan idin soo gudbin xagga kan. Waxaa xagga ku aragtaan Amazon alaabtan inay iibinayso 65%, boqolkiiba 65. Haddii alaabtan ay 17.99 boqolkiiba 65, haddii hadda xagga ay noqoto waxay tegaysaa alaabtan inay noqonayso 41 ama 39 meelahaas oo kale. maxaa inoo tusaale size-kan iyada Amazon uu kasii dhimaan haddaad taqaani sida loo isticmaalo Keepa. waxaa arkaysa Amazon marar badan inay ka baxayso last 3 months. haddaa eegto maantadan inay marayso alaabtan 17.09, laakiin bishii hore inay maraysay February 18keed inay maraysay alaabtan 46.19. Okay, waagaag haddaan tagno yearly alaabtan inay Amazon marba in and out sameynaysay, haddaan tagno 282ga xataa xagga hoose ku qoran inay mar walba Amazon ay ka baxaysa ay kusoo noqonaysa. laakiin bisha tan waxaa aragtaa Amazon inay lowest 19 waxay alaabtan iibin jirtay 64.99, laakiin hadda waxay alaabtan ay noqonaysaa 64. waxay rabtaa Amazon markuu yani inventorygeeda low noqdo inay waxa dhan iska saarto, markaa kadib alaabtan ka socoto ama ay dib deal kale usoo qaadato. waqtiga laga faa'iidaysan karo waxay tahay waqtigan. Amazon alaabtan waxay iibinaysaa very low 17.09. marka ay Amazon wada iibisa alaabta haddana dib baan ugu dari doonaa, waxaan iibinaynaa waxa loo yaqaano $65 ama $44 sa adiga aad u jeceshahay. very much dadkan arkaysta xag ku qoran calaamadaha dhibicda qof walba waxa uu iibiyaa 42 wax la halmaala, waxa ay ku soo iibiyeen 39.23 loo wada banya waxay ku soo iibiyeen 17. sideen ku ogaan karnaa arrinka inuu macquul noqon karo? waxaan ku ogaan karnaa macquul inuu noqon karo waxaan aragnaa Amazon alaabta markaan xagga ka eegano inay stockgeeda ay Amazon xagga iibinaysa stock ay haysana inuu yahay hal xabo oo kaliya. Okay, waxaan noo cadeynayaa alaabtan iyada haddii aan haysto haddaa isticmaasho seller appka waxa loo yaqaano softwarekan seller appka, xaggan alaabta bishii waxaa la iibiyaa 50 and above, content wax ka badan ayaa alaabtan la iibshaa. waatan Amazon waxay haysaa hal xabo, dadkan kalena waxay hayaan waxa loo yaqaan 2 xabo iyo 3 xabo. annagana waa ka soo iibsanay annagoo isku dayayna inaan ii sheeg aan xagga kan alaabtan aan keeno. haddaa idin tusino tusaale ahaan waxaan ka soo iibsanay Amazon, waxaan isku dayaynaa maanta inaan gudaha idin tagno idin tusino waxaan Amazon ka soo iibsanay. waagaag alaabta waa arkaysaa waa ka iibsanay, tusaale ahaan annagana wax yaraan ka soo iibsanay. waagaag dib aan ugu noqonan bartii loo yaqaanay. dadkan oo kale waa arkaysaan marka ay Amazon ka baxdo qofka kan waxa uu iibinayaa 39.92. haddii aad 19 uga soo iibiso alaabtan aad iibiso 18, faa'iidadaadu waxay noqonaysaa $5 wax la jira. Okay, qofka ku xiga ugu sarreeyana hadduu ninkan halkan xabahay hadduu 46 alaabtan uu ku iibiyo Amazon markay suuq ka baxdo alaabtan waxaad ka faa'iidaysaa $11. arrinkan asiga waxaa loo yaqaanaa A to A ama Amazon flip to Amazon. Amazon inaad alaab ka soo iibiso ayaad Amazon aad ku celinaysaa. faa'iidada ugu muhiimsan maxay tahay? faa'iidada ugu muhiimsan waxay tahay alaabtan haddii laga iibsan waayo Amazon ay suuq ku soo jirto ilaa 2 bilood ama 3 bilood, 2 bilood inaad alaabtan 2 bilood Amazon alaabta ugu celin karto. faa'iidada labaadna waxay tahay Amazon alaabtan markaad ka soo iibiso haddii ku tiraahdo alaabtan ma iibin kartid, aan xaq uma lihid, Amazon waxaad tusinaysaa invoice-kii ayaga aad kaga iibisay, waxaa noqonaysaa qof alaabtan iibin kara. صدق ودني فضل الله كورسوي كينا حياك الله. أدب ما سنتين على أنت هذي وعمت